إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka quraanka kariimka aan ku soo jirnay waxaan wali dhexda kaga soo jirnay darsiguna maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 219 buu maanta darsigu ka bilaaban waxaan ku soo jirnay hay-adihii alla subxaanahu wa tacaala uu inoogu caddaynhayay wax badan oo axkaamtii islaamka ka mid ah taasaan dhexda kaga soo jirnay yas'aluunaka nabi muxamedow waxay ku weydiinhayaan dadku can ilkhamri khamrada xaggeeday ku weydiinhayaan walmaysiri qamaarkana way ku weydiinhayaan qul waxaad dhahdaa nabi muxamedow fiihimaa labadaa fiigooduu ku sugnaaday ismun dembi dembigaasoo kabiirun weyn wa manaaficu manaafic dunawi ana way ku sugnaatay manaaficdaasoo linnaasi dadka u ahaatay wa ismuhumaa khamrada iyo qamaarka dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa iyaga nafcigooda ka weyn alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nabi muxamedow dadku waxay wax kaa weydiinhayaan bahasha lagu magacaabo khamrada xukumkeeda iyo bahalka lagu magacaabo maysirka qamaarka xukumkiisa ayay wax kaa weydiinhayaan ee waxaad dadka u sheegtaa
labadaa shayba dembi inuu ku sugan yahay, weliba dembi weyn inuu ku sugan yahay dadka u sheeg. waxaa kaloo dadka aada u sheegtaa manaaficna inay ugu sugan tahay dadka, manaafic dunawi ah oo dee marka laga shaqaysanayo khamrada iyo qamaarka wax adduunyo ah kugu soo gelaya. manaaficda marka hadda la sheegayaay waa manaafic xagga adduunyada ah. alla wuxuu yidhi dembigooda ayaa ka weyn nafcigooda ka weyn. bahashan lagu magacaabo khamradu maraaxil bay martay. qabla alislaam, waktigii jaahiliga khamradu waxay ahayd waxyaabaha dadka markaa joogaaye ay aada ugu xisaabtamaan oo qalbigoodu uu aada ugu xidhan yahay oo ay aada u jecel yihiin buu ahaa. marxaladu waxay gaarsiisnayd khamradu qofku markuu is yidhaahdo waad dhiman haysaa uu ku calaacalo qabriga inuuna khamre ku helaynin, oo uu yidhaahdo qofku waxaa iigu daran marka qabriga la igeeyo inaana khamre helaynin. ashcaar ay ka dejiyeen. qabla alislaam, nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay diray ee muslimiintu ay diinta galeen, ay diinta islaamka qaateenna, khamradu sidii bay iska ahayd ilaa inta laga xarimo. waxaa marka dhacday maalin saxaabatu rasuul rag ka mid ah ayaa waxay isugu tageen ninkii lagu magacaabi jiray cabduraxmaan ibni cof gurigiis. meeshaasay marka khamre ku cabbeen, salaad bay ku tukadeen iyagoo khamradii cabbay. nin dee khamre cabbay oo salaad tukaday suu noqonayaa? markaasaa qur-aankii wixii la akrinayaa lagu dheeldheelay. ilaahay baa wuxuu soo dejiyey walaa taqrabu salaata wa antum sukaara. idinka oo daroogaysan oo khamraysan, idinka oo khamraysan oo maskaxdiinnu ay bedelan tahay, salaad ha u dhowaanina ayaa la yidhi. arrintaas markii dambe amiiruulmu'miniin cumar bay arrintaasi ta'hiir weyn ku yeelatay. isagaa marka qalbigiisa ay aada arrintaasi ugu xoogaysatay. maalin maalmaha ka mid ah waxaa markaysa soo raacay cumar ibnulkhadaab iyo ninkii lagu magacaabi jiray mucaad iyo rag reer ansaareeda isa soo raacay. markaasay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam. markaasaa waxay yidhaahdeen rasuulka waxay ku dhaheen nabigii ilaahayow khamrada iyo maysirka fadwa noo fidyo, wax nooga sheeg. labadaa shay waxay yidhaahdeen mudhilatun lilcaqli, khamradu horta caqligay tagsiin. masliyatun lilmaal, xoolihii iyo caqligii iyo wixii oo dhanba khamrada iyo bahalkan lagu magacaabo qamaarku way baabi'inayaan. marka bal rasuulkii ilaahayow wax nooga sheeg bay yidhaahdeen khamrada iyo qamaarka, wax nooga sheeg. ilaahay baa aayadahan soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. aayaddan marka si toos ah khamradii looguma xarimin oo lama dhihin bataatan joojiya, laakiin waxaa la yidhi dembi baa ku sugan. dadkii marka in badan oo ka mid ah aayaddan markuu ilaahay soo dejiyey bahashii faraha iskaga qaadeen. inna way sii isticmaalaysay oo mar haddaan si joogto ah loo xarimin way sii isticmaalaysay. markii ugu dambaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuu. halkaasa markii ugu dambaysay lagu joojiyey. taasa marka ayaddu ka hadlaysaa. yas'aluunaka nebi muxamedow waxay dadku ku weydiin hayaan can ilkhamri, khamrada xukunkeeday ku weydiin hayaan. walmaysiri, qamaarkana way ku weydiin hayaan xukunkiisa. qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow fiihimaa labadaa fiigoodu ku sugnaaday ismun dembi, dembigaasoo kabiirun weyn, wa manaaficu manaaficna way ku sugnaatay, manaaficdaasoo linnaasi dadka u ahaatay. oo dee adduunya laga helayaa. qofku markuu khamro ka ganacsanayo adduunyuu ka helayaa. qamaar marka uu qofku xoolo ku raadin adduunyuu ka helayaa. dhankaasuu nacfi kaga sugan yahay xagga adduunyada. wa ismuhumaa, labadaa dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa, iyaga nafcigooda ka weyn.
ويسألونك وحيك ويدين هيان ددك النبي محمد ماذا شيء ينفقون أي بحين هيان أو جدك إلهي أي كبحين هيان قل وحاد هذا النبي محمد أنفقوا بحيا العفو وحديرك إذك باهدين كزياسا بحيا كذلك كاغاس وكلا حال يهي يبين الله وعدين هيا لكم إذنك الآيات آياتكم إذن عدين لعلكم وحاد مذنتهن تتفكرون إن فكرتان آيات قيبتان كلا سبب النزول بيا يلهيت سبب النزول كانوا وحوها مسلمين تمركي لفريقين أي ودوينك خيرك أي وحكو ربحان إني ودوينك خيرك وحكو ربحان وحي واجبك هاي صدقتي واجبك هاي وحكا ديريا إني جدتك خيرك كبحيان مركي لأمري أي أنصارك كمدا يا النبي وحي ويديين عليه الصلاة والسلام محان بحنا مرك زكاة وحلا بحنا يوالا يقانا شرعي أيا عديي لكن وحن كلين واجبك هاين صدقة ودوينك خيرك أنكو ربحينو ووحي انت لك بين النبي ويدين عليه الصلاة والسلام إلهي با مركا أجوابي وإلهي با وحويري العفو ووحب باهدي انك زياسا وحا أديك كازياسا إلا أن مركا عاد حولها يسطو نبي وحويري عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يعني مركا هورا النفط هذا باهدة كب اللابي haddana waxaad ku xijisiin dadka aad mas'uulka ka tahay ilmaha dhashay islaantaada waalidka waxa aad mas'uulka ka tahay nafaqadoodu adiga ay ku saaran tahay baad ku xijisiin wixii marka inta ka soo haray wax iska hormari oo maalinka qiyaamo waxaad u baxsato isdaafi ويسألونك وحيك ويدين يا نبي محمد ماذا شيء ينفقون أي نفقين هيان قل وحاد هذا أنفقوا نفقيا العفو وحا إذن كديرك عن نفقيا كذلك كاغاس وكالحال ويهي سيدا حكم كإلهي وإذن كعديي يبين الله إلهي وعدين لكم إذن كالآيات آياتك لعلكم وحاد مذنتهين تتفكرون إنات فكرتان في الدنيا دحديدنا عاد فكرتان والآخرة آخرنا عاد فكرتان ويسألونك نبي محمد وددك وحيك ويدين هيان عن اليتامى أغونت أيك ويدين هيان قل وحاد هذا إصلاح هجاجين واللهم إيجا لهجاجيو يا خير بدن وإن تخالطوهم أغونت هداد وحكو درستان وحولهن إي حوله هذا إنت هاد اسكو درتان سوى ناكسا الله وضا استعماله فإخوانكم ولا الذين وي والله إلهي يعلم وحو أغيهي المفسد متك وحفسهادين بو أغيهي من المصلحبون كأغيهي ولو شاء الله إلهي هدو دون لها لأعنتكم وإذ المشقين لها إن الله إلهي عزيز الله أدو مديسة كأذوية حكيم أولي مامل ونكسن إلهي سبحانه وتعالى مركو سود الجيي آياته كهاللي أغونت إنا وحوذ اللور دوانين وفرها اللقاء مركو إلهي سود الجيي يا ددكي مسلمين تاها أغون هاي أوردان انت يحوله هذه أغون تأصو عين بي ميل أجوجيين markaas waxay yiraahdeen waxaanu soo wax aqoon ma aha banaankaaba ha iga joogo marba hadii cadaab lagu gelayo oo cado ilaahay lagu mudan hayo xagga ha iga joogo yiraahdeen way iska wada fogeeyeen arinta marka madara ka timi ilma yaro aqoon ah oo aan wixiisa isagu la istiqlaali karin oo wixiisa aan maamuli karin marka wixiisi banaan la tubo qofkana awood uma leh inuu waxaana ka shaqeeyo wixiisana ka shaqeeyo إلهي بأمرك وحيد سبحانه وتعالى
waxay nabi muxamedow dadku ku weydiinayaan agoonta sida loola dhaqmayo. waxaad dhahdaa agoonta in waxooda loo hagaajiyo, waxooda loo maamulo ayuu khayrku ku jiraa. in la iska fogeeyo la yidhaahdo bannaanka ha naga tageen waxaa ka wanaagsan agoonta adigu aad mas-uulka ka tahay inaad waxooda u hagaajisid, waxooda aad u maamushid, gacanta aad ugu haysid, xoola hadday leeyihiin aad ugu shaqaysid, aad yacni maaragtay wax soo saar aad ugu samayso. wuxuu alla yidhi haddii agoonta waxooda iyo wixiina aad isku dartaan oo si wanaagsanna markaa waxa loo wada isticmaalo, iyaduna waxaa weeye waa walaaladiin. maalan geeli agoontu ay lahayd iyo geelahdii baad isku dartay, si fiican baa loo wada maalayaa oo wixii maaragtay loo wada intifaacsanhayaa. wax dhiba agoonkana uguma sugna arrintan, waa walaaladiin buu ilaahay yidhi. waxaa kalood ogaataan qofka mufsidka ah ee agoonta waxooda fasahaadinaya ilaahay baa og, oo ilaahay wuxuu ka og yahay midka muslixa ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mudaalicu lquluub. ilaahay jismigan kori iyo qolofkeennan kore ilaahay ma fiiriye, xagguu fiiriyaa ilaahay qalbigaabuu fiirinhaya. ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum. ilaahay baa wax walba og. alla wuxuu leeyahay hadduu ilaahay doono wuu idin mashaqayn lahaa, oo mashaqadaas maxay tahay? ilaahay wuxuu idin dhihi lahaa agoonta waxooda inaad maamushaan waa idinku waajib, mana u dhowaan kartaan. saasuu ilahay idin dhihi lahaa. saasna mashaqaa ku jirta. ilaahay marka sidaa ma uusan idin dhihine ilaahay wuxuu idin leeyahay agoonta waxooda gacanta ugu haya, hana fasahaadinina ee si fiican u maamula. nooca masala wayas'aluunaka nabi muxamedow dadku waxay ku weydiinhayaan canilyataamaa agoonta xaggooday ku weydiinhayaan. qul waxaad dhahdaa islaaxun wanaajin oo lahum iyaga wax loo wanaajiyo yaa khayrun khayr badan. wa in tukhaaliduuhum agoonta haddaad wax ku darsataanna fa ikhwaanukum walaaladiin weeye. wallaahu ilaahay yaclamu wuxuu og yahay almufsida midka wax fasahaadin buu og yahay, min almuslixi midka wax hagaajin buu ka og yahay. walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa la acnatakum wuu idin mashaqayn lahaa. ina allaha ilaahay casiizun alla qaalibaho addoommadiisa ka adag weeye, xakiimun oo weliba maamul wanaagsan. walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah ee ilaahay u shariig yeelay ha guursanina, xataa yu'minna ilaa ilaahay ay ka rumeeyaan. wala amatun addoon mu'minatun oo iimaan leh yaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid ilaahay u shariig yeeshay. walow acjabadkum haba idin cajab geliso oo xagga quruxda iyo xagga dhalashada iyo xagga maalkaba ha idinku cajab gelise mid addoona oo iimaan la ka khayr badan. walaa tunkixuu gabdhaha aad mas-uulka ka tihiin ha u guurinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ah ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ilaahay ka rumeeyaan. wala cabdun addoon mu'minun oo mu'mina yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid ilaahay u shariig yeeli. walow acjabakum haba idin cajabgeliya midkaasi oo qurux iyo maal iyo dhalashaba ha idinku cajabgeliye. ulaa'ika kuwaa gaalada ah yadcuuna waxay idinku yeedhayaan ila naari naar bay idinku yeedhayaan. wallaahu ilaahayna yadcuu wuxuu idinku yeedhayaa ila aljannati jannu idinku yeedhayaa iyo walmakfirati makfiro biidnihi buuna idinku yeedhayaa. wayubayinu alla wuxuu caddaynhayaa aayaatihi aayaadkiisuu caddayn linnaasi dadku u caddayn lacallahum dadku waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay xusuustaan xaqa oo ay waansamaane. alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala gabdhaha mushrikaadka ha guursanina. dadku marka hore labay u qaybsamaan. waxaa loo qaybsamaa muslimiin iyo gaalaa loo qaybsamaa. muslimiin iyo kufara ayaa loo qaybsamaa. muslimiintu ma qaybsamaan, iyagu waa hal un. gaaladaa qaybsami oo laba u qaybsami.
waxay gaaladu u qaybsamaysaa wathaniyiin iyo ahlulkitaab bay u qaybsamayaan. wathaniyiin waa dadka oo asnaamta iyo xoolaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo waxyaabaha waxa caabudi oo dhan isuge waa wathani. ahlu kitaabna waa ahlu kitaab. ahlu kitaabka gabdhahooda waynu guursan karaa inagu haddaynu muslimiinta nahay, laakiin iyagu gabdhaheedna ma guursan karaan. limaada? alislaamu yacluu walaa yuclaa. sideedaba islaamku isagaa sarreeya, islaamka wax ka sarreeyayi ma jiro. gabadha muslimadda ah hadduu nin gaala la yidhahdo ha guursado, waa qof dumara soo maaha. maxaa la yidhaahdaa? almar'atu tadiinu bidiini zawjiha. gaalkaasi gabadha marka dambe diinta wuu ka fasahaadin. midda kale mas-uuliyadda isagaa iska leh, oo ninka iyo naagta mas-uuliyadda yaa leh, ninka ayaa leh. marka waxaa meesha ka soo bixi gabadhii muslimadda ahayd oo nin gaala uu maamulayo oo isagu uu ku tasarufayo oo taxtigiisa ay ku jirto ayaa meesha ka dhalani. marka dambena wuuba ka fasahaadin diinta oo wuxuu dhahayaa diinta ka bax kaniisadayna ka inaan tagne. arrinta marka waa la joojiyey. laakiin ninka muslimka ah gabadh gaala wuu guursan karaa ahlu kitaaba. limaada? siyaadada iyo qawaamada isagaa iska leh, maamulka isagaa iska leh. marka dambena ninkani wuxuuba ku qancin inay islaamka gasho, tawxiidku u qabanaya. oo naagtu sideedaba naagtu marka ay ninka jeclaato wax alla wuxuu ku sugan yahayba iyaduna ayay samaynaysaa. marka ninkani marka dambe gabadhan wuxuu ugu sabab noqonayaa inay islaamka gasho, ayuu ugu sabab noqonayaa. sidaa darteed ahlu kitaabka gabdhahooda waynu guursan karaa, laakiin iyagu gabdhaheenna ma guursan karaan. laakiin mushrikiinta gabadhoodana ma guursan kartid, iyaguna gabadhaada ma guursan karaan. ayaddu waxay ka hadlaysa waa middaas wey. alla marka wuxuu leeyahay gabdhaha mushrikaadka ah ha guursanina, ha guursanina. waxaa ka fiican gabadh mushrikada intaad guursan lahayd mid addoona oo iimaan leh inaad guursatid. ilahay agtiisa taasaa dahabka ah maadaama iimaan leedahay. gabadhan mushrikadiihi haba ku cajab geliso, qurux ha kugu cajab geliso, dhalasho ha kugu cajab geliso, maal ha kugu cajab geliso, waxba taasi qiimo ma leh. hadday marba mushrikad ay tahay waxaasi qiimo ma laha. ilaahay wuxuu leeyahay gabdhaha aada mas-uulka ka tihiin, gabdhaha aada mas-uulka ka tihiin nimanka mushrikiinta ayaan loo guurinin ilaa ilaahay ay ka rumeeyaan. gabadhaada inaad addoon iimaan leh aada u guuriso ayaa ka fiican inaad mushrik u guuriso, taasaa ka fiican. lama ogola gabadh muslimada gaal ama kitaabi ha ahaado ama wathani ha ahaadee gabadh muslimada inuu qof gaal a guursada lama ogola. soomaalidu waagii uu isticmaalku waddanka soo galay ee dee laga adkaaday muqaawamadii dadkii muslimiinta ahaa ee gaalada inay waddanka ka celiyaan isku dayay, markii dambe laga adkaaday intii soomaalida laysu adeegsaday. gabdho soomaaliyeed bay gaaladii waddanka soo gashay yay xaraysteen. soomaalidu maxay dhihi jireen? wuu guursaday, way u quuri waayeen. gabadhii ina heben ahayd gaal baa guursaday ma ayna dhihi jirin. waxay dhihi jireen gabadha ina hebena gaal bay u fuushaa, saasay dhihi jireen. culimmadu markii dambe ay laga xoog batay oo gaalada ay xoog badatay, culimmadu markii dambe waxay qaadeen halgan ay ku tala galeen gaalada iyo dadka in la kala celiyo oo gaalada dadka loo xumeeyo. weliba culimada badan dadka waxay ka dhaadhiciyeen cadiinkan gaalada waxaan saaran, waxay dadka ugu sheekeeyeen waxani waa baras, waa cudur, yaan loo dhawaanin, ma aha midabe. marka mayna ogolayn dadka aniga weelashooda in wax lagu cabiyo aadba hadda, laakiin lagu faanaa hebel baa gaal la saaxiib, hadda waa nin raga, ninka gaal la saaxiibi. nacuudu billah. waloo fiirso. walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay ilaahay ka rumeeyaan. wala amatun addoontaasoo mu'minatun iimaan leh yaa khayrun ka khayr badan min mushrika, midda oo mushrikada ah taasaa ka khayr badan. walow acjabatkum taasi haba idin cajab gelise
walaa tunkixuuha u guurinina gabdhaha aada mas-uulka ka tihiin almushrikiina nimanka mushrikiinta ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ilaahay ka rumeeyaan walacabdun addoon mu'minun oo mu'mina yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid gaal ah oo mushrig oo ilah u sharig yeelay walow acjabakum haba idin cajabgeliye ulaa'ika kuwaasi yadcuuna waxay idinku yeedhayaan ila naari yadcuunakum anigi mafcuulkii baa go-an ulaa'ika kuwaasi yadcuuna waxay idinku yeedhayaan ila naari naar bay idinku yeedhi wallaahu ilaahayna yadcuu wuxuu idinku yeedhayaa ila aljannati jannuu idinku yeedhayaa waalmakfiratina wuu idinku yeedhayaa biidnihi buuna idinku yeedhayaa wayubayinu alla wuxuu caddaynhayaa aayaatihi aayaadkiisuu caddayn linnaasi dadka ayuu u caddayn lacallahum dadku waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay ilaahay xusuustaane wayas'aluunaka nabi muxamedow dadku waxay ku weydiinhayaan canilmaxiidi xaydka ayay ku weydiinhayaan xaydka ayay ku weydiinhayaan qul waxaad dhahdaa huwa xaydku adan waa dhib waa wasakh ee factazilu nisaaa haweenka ka dheeraada fi lmaxiidi fii zamani اlxaydi xaydka zamankiisa ka dheeraada walaa taqrabuuhunna haweenka ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan fa idaa tadaharna markay daahir noqdaanna faatuuhunna haweenka u taga min xayثu meel uga taga amarakum اllahu ilaahay uu idin amray ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa towbadkeenka badan wa yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahira ayuu ilaahay jecel yahay wuxuu alla leeyahay nabi muxamedow dadku waxay ku weydiinhayaan xaydka canilmaxiidida xaydka nafdiisa waa lagu idlaaqay oo kelimada maxiid waa masderkii xaada yaxiidu maxiidan makaanka oo anigi meesha uu xaydku ka iman ana waa lagu idlaaqay min jihati tafsiir laakiin tafsiirkan hore oo in xaydka naftiisa lagu idlaaqo taasaa yani maarata tafsiirkaasa waxoogaa xoog badan kaasaynu marka iska maraynaa wuxuu marka leeyahay alla nebi muxamedow dadku waxay ku weydiinhayaan xaydkay ku weydiinhayaan muxuu yahay marka ilaahay wuxuu yidhi waxaad dhahdaa xaydku waa qurun ee iskaga dheeraada ka fogaada aayaddu marka sababu nuzuul bay lahayd sababu nuzuulkeedu wuxuu ahaa qabla albictha intuusan ilaahay nebi moxamed soo dirin calayhi salaatu wasalaam dhaqankii jiray gaaladu labay waxay u qaybsamaayeen ahlu kitaab iyo mushrikiinta iska daa ahlu kitaabku nimanka lagu magacaabo yahuuddu naagtu marka ay uu dhiig ku dhaco waa la karantiini jiray qol yar baa lagu xarayn jiray ilaa ay ka qabaysato ay ka daahir noqoto meesha lagama soo saari jirin lala hadli mahayo la taaban mahayo jidhkeeda weel ay wax ku cabtay waxba lagu cabi mahayo karantiil bay saari jireen waa yahuudda kuwa nasaaradii ihina xaydba mayna aqoonin fii kulli waqti naagta way iska isticmaalayeen iyadoo dhiig qabta iyadoon dhiig qabin wax kasta way iska batalaqsanayeen iyaguna labadan dhaqan bay kala lahayn ahlu kitaab yahuudduna haweenayda markuu dhiigu ku dhaco way fogeeyeen nasaaraduna way iska batalaqsadeen waxooda dan mayna ka gelin marka muslimiintu nabi muxamed bay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen yahuudna sidanay u dhaqantaa nasaaraduna sidanay u dhaqmaan maxaa marka anagu maxaan samaynaa see la yeelaa ilahay baa qur-aan ka soo dejiye subxana wa tacaala alla wuxuu yidhi waxay ku weydiinayaan nabi muxamedow xaydkay ku weydiinayaano waxaad dhahdaa waa qurun haweenka ka dheeraada marka ay dhiig qabaan hana u dhowaanina maxaa laga wadaa ha isticmaalina walaa taqrabuuna waxaa fasiri sunnada ayaa fasiraysa caaisha waa ayada le nabigu calayhi salaatu wasalaam
markay caadadu nagu dhacdo wuxuuna amri jiray inaan hoosta wax ku xidhanno lowga iyo xudunta inta u dhaxaysa intaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska asturta inta kale waa xaaskaagii wixii kale eed ku samayn waad ku samaynaysaa laakiin intaasaad iska ilaalin xudunta iyo lowga inta u dhaxeeyaan iska ilaalin intaa waxaa lagu difaacayaa meeshaasaa lagu difaacayaa ilaan haddii intaa la dhaafo horaa loo sii soconaya halkaasaa marka la iskaga celinhayaa marka saasaa marka loo dhowaan mahayo ilaa ay ka dahaaro qaataan markay dahaaro qaataanna meeshuu ilaahay amray in looga tago oo farjiga ah ayaa looga tegiya meel kale looga tegi mahayo waa nooc masaladu wayas'aluunaka nabi muxamedow dadku waxay ku weydiin hayaan canilmaxiidi bay ku weydiin qul waxaad dhahdaa huwa xaydku adan weeye ee factazilu nisaa'a naagaha ka dheeraada filmaxiidi fii zamani alxaydi xaydka zamankiisa ka dheeraada walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka dahaaro qaataan faidaa tadaharna markay dahaaro qaataan fa'tuuhunna haweenka u taga min xaysu meel uga taga amarakum ullahu ilaahay uu idin amray in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiinu jecel yahay wa yuxibu wuxuu jecel yahay almutadahiriina ayuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badan ayuu ilaahay jecel yahay oo mar walba ilaahay u noqda ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isdahira xisan wa macnawiyan kuwa isdahirana ilaahay wuu jecel yahay xumaanta oo muuqata iyo xumaanta qalbiga gasha labadaasba qofkii iska dahirana ilaahay wuu jecel yahay nisaa'ukum haweenkiinu xarthun beer wey beertaasoo lakum idinka idiin ahaatay ee fa'tuu xarthakum beertiinna u taga annaa shi'tum si alla sidaa doontaanna ugu taga annaa shi'tum kayfa shi'tum saad rabtaan ugu taga waqadimuu lianfusikum nafafyaalkiina u hormariya acmaalan acmaashaasoo saalixa acmaal wanaagsan naftiina u hormariya wattaqu llaha ilaahay ka baqa waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu ilaahay inaad la kulmaysaan ogaada wabashir nabi muxamedow u bishaaree almu'miniina dadka iimaanka lana u bishaaree alla wuxuu leeyahay haweenkiinu waxaa weeye waa beertiinni waa tashbiih haweenkii ilaahay wuxuu ku shabahayaa beer buu ku shabahayaa marka tashbiihaas waxuu ka imanayaa beertu soo wax ma soo saarto haweenkuna waxbay soo saaraan awlaadii buu ilaahay subxaana wa tacaala yuu naga siinhayaa alla marka wuxuu yidhi haweenkiinu waa beertiinnii ee beertiinna u taga saa doontaan ugu taga maxaa laga wadaa saa doontaan iyadoo fadhida iyadoo taagan iyadoo jiifta iyadoo sii jeeda iyadoo soo jeeda saa rabtaan ugu taga marka annaadu makaan ma aha waa kayfiye waa aayaddu inay arrintaa ka hadlay waxaad ku garan sababu nuzuul bay lahay aayadda qudhigeedu oo sababu nuzuulkeedu wuxuu ahaa yahuudda waxay dadka ugu sheekayn jireen haddii ninku naagtiisa iyadoo sii jeeda uu u tago oo dee uu uga tago farjigan uga tago iyadoo sii jeeda oo ay uur qaado ilmahaasi wuxuu noqonayaa axwal ilmaha markaa caloosha galaaya axwal buu noqon yani weershe axwalku waxaa weeye qofka waxoogaa indhaha uu qalloocu kaga jiro oo isagoo meel fiirin aad u malin meel kala fiirinhayo kaasaa waxaa la yidhahda axwal baa la yidhahdaa saas marka ilmo noocaasa habeenkaas wixii calool galaa ilmuhu noocaasba noqon yay dadka ugu sheekayn jireen tii baa marka lagu diiday waxaa la yidhi saa rabtaan ugu taga ama ha sii jeedo ama ha soo jeedo ilmaha iyada oo caadi loogu tegay buu ilahay axwal ka dhigi kara hadduu ilahay ugu talagalay marka waxaana yuhuuddu ay daldalayso waxba kama jiro nisaa'ukum haweenkiinu xarthun waa beer xarhigaasoo lakum idinka idiin sugnaaday ee fa'tuu xarthakum beertiinna u taga annaa shi'tum saa doontaan ugu taga waqadimuu u hormariya linafsikum naftiinna acmaal wanaagsan u hormariya wattaqu llaha ilaahay ka baqa waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu ilaahay inaad la kulmaysaan wabashir u bishaaree nebi muxamedow almu'miniina mu'miniinta u bishaaree walaa tajcaluu ha ka yeelina allaha ilaahay curdatan gaashaan ilaahay ha ka yeelina liaymaanikum curdadaasoo liaymaanikum
dhaarihiinna u ahaatay an tabaruu min an tabaruu inaad baarinimo samaysaanna aad ka gaashaaman haysaan oo watataquu ilaahay aad ka baqdaan oo watuslixuu aad hagaajisaan bayna naasi dadka baynkooda wallaahu ilaahayna samiicun waa alla samiica caliimun oo weliba caliim ah aayaddu sabab bay lahayd sababku wuxuu ahaa gabadhii lagu magacaabi jiray caaisha ifkiga markii lagu sameeyey dadkii ifkiga wax ka buunbuuniyey waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabi jiray misdax oo abuubakarna ay qaraabo ahaayeen oo habaryartii ay dhashay abuubakarna uu dhaqaalay jiray baa ka mid ahaa ninkii marka uu abubakar ay qaraabada ahaayeen markii dambe ilaahay uu beri yeelay caaisha ee ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey inay caaisha ay beri tahay markuu ilahay qur-aanka uu ka soo dejiyey dadkii dee waxaan buunbuuniyeyna la ogaa ayuu abubakar dhaartay wuxuu ku dhaartay inuusan ninkaa dib dambe uusan wax u siinaynin ayuu ku dhaartay ilaan gabadhiisii oo u jeclaa oo xaaskii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yuu dadkii ceebeeyey ka mid noqday saa markuu u dhaartay buu ilaahay qur-aankan soo dejiyey aayaddan aayadihii markaa soo degay bay ka mid ahayd oo arrintaa ka soo degay ilaahay baa marka wuxuu leeyahay ilaahay ha ka dhigina curdadu waxaa weeye laba waa lagu idlaaqaa waxaan la yidhaahdo hadafka oo intii meel saa loo dhiga lagu toogdhisto la toogto waa lagu idlaaqaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa curdada wixii wax la isuga dhigo wadooyinka hadda maalan birahan waaweyn ee la dhigo jagboontiyada la dhigo ee loogu talagalay gaari inaan la dhaafina saa u yaalla ilaa lagaa qaado waa curda waa wax kale dhex gelaya waay waxaas curda wey alla marka wuxuu leeyahay dhaartiinna ha ka dhigina gaashaan oo aad kaga gaashaaman haysaan inaad khayr samaysaan ilaahay ka baqdaan dadka islaaxisaan oo qofka maalan waxaa tidhi wallaahi billaahi tallaahi inaana qofka waxaa siinhaynin wuxuna waa wax khayra markaasaa la yidhi qofkan iyo wixiisii markaasaa tihi waan ka dhaartay waxaas dhaartaasi marka maxay noqonaysaa soo curdo ma ah waa gaashaan aniga wixii khayrka qofka aad siin lahayd bixin lahayd ayaa waxaad leedahay waan ka dhaartaad leedahay allah marka taa inoo diidan saa ha yeelina dhaartu marka waxaa weeye waa 3 qaybood dhaar waa dhaar uu qofku ku talagalay qof ibnu aadama xaqiisa inuu ku qaato isagoo og inuu xaqiisa ku qaato maxaa middaa lagu magacaabaa alyamiin alghamuus waa asabca almuubiqaat bay ka mid tahay soo ma qof baad xoolihiisii intaad ku qabsatay oo dhaar lagugu yeeshay yaa waxaa tidhi wallaahi billaahi tallaahi in anagu xaqaa leeyahay waanad ogtahay inaad xaqaa lahayn qofkaas uu leeyahay waa dhaartaadii baa lagu raa wixii waa lagu siiyey dhaartaasi naar bay ku tiimbisay taas iyada xagga iska dhig dhaarna waa dhaarta carabka iskaga duuraysato aayadda dambaa ka hadliyo qofka markii wax la weydiiyo war xasaayaysa miya maya wallaahi ha wallaahida markaa adiga danka barid carabkaa iska bartay taana xugun bay leedahay dhaar iyadu kafaarala marka jirto oo wax maalan aad si u malayn hayso oo laakiin sida aan ahayn ayaad ku dhaaratay wixiina sidii ma aha wixii dhaartii been bay noqotay oo dhaartii wixii aad ku dhaaranaysa way khilaaftay taasi kafaara leedahay waan arki doonaa iyada insha allah intaas dhaaruhu kala baxaan walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina curdatan gaashaan allaha ka yeelina liaymaanikum dhaarihiinana ha uga yeelina an tabaruu liaymaanikum tajcaluda haddaan ku tacalujinayna walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina curdatan gaashaan allaha ka yeelina liaymaanikumna ha uga yeelina an tabaruu min an tabaruu inaad baarinimo samaysaanna aad kaga gaashaaman haysaan oo watataquu ilaahay aad ka baqdaan oo watuslixuu aad hagaajisaan bayna annaasi dadka baynkiisa wallaahu ilaahayna samiicun alla maqal badan weeye caliimun oo weliba cilmi badan laa yu'aakhidukum allaahu ilaahay idiin qaban mahayo bilagwi lagwiga ilaahay idiin qaban mahayo xaala kownihi lagwigu fii aymaanikum dhaarihiinna u ahaaday walaakin yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idin qabanhayaa bimaa shayga kasabad
ay shaqaysatay quluubukum quluubtiinu oo aad ku tala gasheen wallaahu ilaahay gafuurun alla dembi dhaaf badan weeye xaliimun oo weliba xaliim oo dulqaad badan alla wuxuu leeyahay dhaarta lagu magacaabo yamiinu lagwi yamiinu lagwi maxaa la yidhahdaa waa dhaar carabka iskaga dureersan haysa un maada ku talagelin war waxaan isi wallahana ku siin iga tag war waxaan meeshaa dhig wallahana dhiganin iga tag wal hadalkii la soo qaado wallahi baa daba socod dadka daba badan yihiin ogow war waxaya waxaa ma aragtay wallahi ma arkin wallahi saa ma yeelin wallahi dan baa iska socota wax marka aad ku tala gasheen inay carabkiiba intuu iska bartay iyo carabkii iskaga socotaa taas ilaahay idiin qaban mahayo kafaarana male dembina male laakiin ilaahay muxuu idiin qaban wixii dhaara ee aad ku tala gasheen wallaahi inuusan waxaasi saa ahayn baa tidhi adoo rabo waxa inaad ku dhaarato wixii marka wixii hadduu noqdo dee waa sax hadduu wixii sidii noqon waayo maxaa meesha ka dhacays kafaara ka dhacays laa yu'aakhidukum allaahu ilaahay idiin qaban mahayo bilagwi dhaarta lagwiga ah ilaahay idiin qaban mahayo xaala kownihi lagwigu fii aymaanikum dhaarihiina u ahaaday walaakin yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idiin qaban hayaa bimaa shayga kasabad ay shaqaysatay quluubukum quluubtiinu ay shaqaysatay oo aad ku tala gasheen wallaahu ilaahay gafuurun alla dembi dhaaf badan weeyaan xaliimun oo weliba dulqaad badan liladiina kuwii waxaa u ahaaday yu'luuna ka dhaaran haya min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaran tarabusu 4 ashhurin 4 bilood sugidooda ayaa u ahaaday ee fa in faa-uu hadday noqdaan kuwaasi oo naagahoodii ay jimaacaan fa ina allaha ilaahay gafuurun alla dembi dhaaf badan weeyaan raxiimun oo weliba naxariista waa alla dembi dhaaf badan oo haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista ayaddu maxay ka hadlaysaa maalan nin baa wuxuu ku dhaartay inuusan naagtiisa taaban haynin ayuu ku dhaartay inuusan taaban haynin ayuu ku dhaartay 4 bilood baa la sugayaa 4 bilood ayaa la sugi 4 bilood waa inta haweenayda caadigihii ay nin ka samri karto ay iscelcelin karta wa haweenayda caadiga ah ee dabeecaddeedu ay caadiga tahay inta oo ay iscelcelin karta waa haweenka qaar waxaa jira aan 7 iscelcelin karin qaar waxaa jira sanadaba aan dan ka lahayn waxaa marka laga hadlayaa midda caadiga dabeecadda caadiga laga hadlayaa idan marka hadduu ninku naagtiisa uu inuusan taaban haynin uu ku dhaarto 4 bilood baa la sugayaa 4 bilood markay dhammaato waxaa la leeyahay ama cesho ama fasax wax kale ma jiro ilaan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisu inay isdhibaan oy is-addoonsadaan ilaahay ma uusan ugu talagelin marka gabadhan haddii aad dan ka leedahayna hayso haddii aadan tan ka lahayna fasax wax kale ma jiro liladiina kuwii waxaa u ahaaday yu'luuna dhaaran min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaran tarabusu 4 ashhurin 4 bilood sugidooda ayaa u ahaaday ee fa in faa-uu faygu hadda waa jimaac ogowya fa in faa-uu hadday jimaacaan oo haweenkii ay jimaacaan ay ka dhaarteen fa ina allaha ilaahay gafuurun waa alla dembi dhaaf badan raxiimun oo weliba naxariis badan wain cazamuu hadday go-aansadaan addalaaqa furid hadday go-aansadaanna fa ina allaha ilaahay samiicun waa alla maqal badan caliimun oo weliba cilmi badan maxay tahay masaladu ninkii naagtiisa ka dhaartay ee yidhi wallaahi inaana taaban haynin 4 bilood baa dhammaatay maxaynu nidhi ama wuu ku noqon ama wuu furi soo ma aha hadduu ku noqdo ilaahay waa gafuuru raxiim haddii uu dalaaq uu go-aansaduu furana ilaahay waa samiic oo dalaaqiisa uu maqlaya waa nooca wey wain cazamuu hadday go-aansadaan kuwa naagaha ka dhaartay dalaaq hadday go-aansadaan fa ina allaha ilaahay samiicun alla maqal badan weeye caliimun oo weliba cilmi badan waalmuطallaqaatu naagaha la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooday sugayaan 3 quru'in 3 qur'i ayay sugayaan
walaa yaxilu uma bannaana oo xalaal uma aha lahunna naagaha an yaktumna inay qariyaan maa shayga khalaqa allaahu ilaahay uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda uu ku abuuray in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumayn billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo. wuxuu la leeyahay haweenka la furay naftooda waxay sugayaan 3 qur'i. naagta markii la furo laba u kala qaad inay xaamilo tahay iyo inay xaamilo ahayn. haddii ay xaamilo tahay ciddadeedu waxay ku go'aysaa xamliga inay dejiso ayay ciddadeedu ku go'i xaamilada. haddayna xaamilo ahayna wixii aan ku ciddo tirsanaynin bil haweenka oo anigee dhiigu uu ka dhammaaday iyo kuwa yaryar iyo bil iyaga iska dhe. laakiin haweenayda oo uu dhiigu ku dhacayo 3 qur'i. qur'igu waa 3 duhri ama waa 3 xayd, labada waa lagu fasira qur'ige. 3 jeer naagtu waa inay daahir noqoto. ilaahay baa marka wuxuu leeyahay naagaha la furay naftooda waxay sugayaan 3 duhri. 3 jeer markay daahir noqdaan ciddadii way ka baxday islaantaas. ninka ribday guursan kartaa. haweenkana waxaan u bannaanayn sharciyan inay wax caloosheeda ku jira ay qariso. naaguhu markay xanaaqaan waa halis. naagta haddii intaad isku xanaaqdaan aad furto waxaa laga yaabaa iyadoo uur leh inay waxay uurka ku ay kaa qariso oo dhowaan intay nin islaameed u geyso ay dhahdo ninkaasaa dhalay. ilaahay baa marka wuxuu leeyahay haweenka xalaal uma aha inay qariyaan waxa calooshooda ku jira. waxa calooshooda ku jira inay qariyaan xalaal uma aha. dan dooni ha kala caadeen. kuwa qaarkood waxay u qariyaan inay dhahaan ciddadii baan ka baxnay. kuwa qaarkoodna waxay u qariyaan xanaaq ay u qabaan ninka furay ayay u qariyaan waxa calooshooda ku jira. si dooniba ha u qarisee naagta sharciyan waxaan la ogoleen oo weliba ay cadaab ku geli hadday samayso waxa ilaahay uu caloosheeda ku abuuray inay qariso cadaab bay ku gelaysaa. waalmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna bianfusihinna nafafyaalkooday sugayaan 3 quru'in 3 qur'i. walaa yaxilu uma bannaana oo xalaal uma aha lahunna naagaha an yaktumna inay qariyaan maa shayga khalaqa allaahu ilaahay uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda uu ku abuuray. in kunna hadday yihiin haweenku yu'minna kuwa rumayn billaahi ilaahay iyo walyowmi maalin alaakhiri ee dambe oo qiyaamada ay rumaynhayaan oy ogsoon yihiin inay qiyaamo ay istaagayaan. wa bucuulatuhunna naagaha nimankooda axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna naagaha ceshigooda fii daalika kaagaa oo ciddada ah fiigeedana ay ceshadaan in araaduu nimanku hadday doonayaan islaaxan hadday doonayaan. naagta markii ninku uu furo 3 dalqadood hadduu ku furo iska daa iyada way ka baa-intay xagga iska gee. hadduu ninku naagtiisa 1 dalqada ku furo ama 2 dalqadood uu ku furo ciddadu waxay noqon rajciyay noqon. ninku wuxuu khiyaar u leeyahay inuu ceshado isaga marka ku xaqle. isagu hadduu islaax doonayo wuu ceshan karaa oo naagtiisa markaa intuu makhraati u sameeyo ayuu ceshanayaa. waa noocaas. wa bucuulatuhunna naagaha nimankooda axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna naagaha ceshigooda fii daalika kaaga oo ciddada ishaaradu ciddada u noqon. fii daalika kaaga fiigiisana ay ceshadaan in araaduu hadday nimanku doonayaan islaaxan islaax iyo wax hagaajin hadday doonayaan. walahunna naagihii waxaa u sugnaaday mithlu ladii kii wax la mida calayhinna iyaga dushooda ku sugnaaday bilmacruufi ma ugu sugnaaday. walirijaali raggana waxaa u sugnaaday calayhinna naagaha dushooda waxaa ugu sugnaaday darajatun darajo oo iyaga ayaa ka daraja oo maamulaya. wallaahu ilaahay casiizun alla addoommadiisa ka adag weeyaan xakiimun oo weliba maamul wanaagsan. alla wuxuu leeyahay naaguhu xuquuqda ay nimanku naagaha ku leeyihiin oo kale iyaguna leeyihiin. labada qof markay isguursadaan ninkuna xuquuq buu yeelan naagtuna xuquuq bay yeelan haysaa. marka alla wuxuu leeyahay haweenka waxaa u ahaaday xaqa waxa iyaga dushooda ah oo ninku uu ku leeyahay xaqa ah. laakiin ragga waxaa haweenka ugu aaday daraja. maxaa laga wadaa?
maamulka iyo mas-uuliyadda yaa iska leh ninkaa iska leh maamulka iyo mas-uuliyadda ninkaa iska leh marka ragga waxaa haweenka ugu sugnaaday darajo macnahooda nooca wey iyagaa maamuli qawaamada iyagaa leh mas-uuliyadda nimankaa iska leh walahunna haweenkii waxaa u ahaaday mithlu ladii kii wax la mid ah oo calayhinna iyaga dushooda ku sugnaaday bilmacruufi buuna ugu ahaaday walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna naagaha dushooda waxaa ugu sugnaatay darajatun darajo dheeriya ayaa ugu sugnaatay wallaahu ilaahay casiizun alla haaliba weeyaan oo addoommadiisa ka adag xakiimun oo weliba maamul wanaagsan adalaaqu marataani laba jeer wey dalaaqa rajciyada leh waa laba jeer fa imsaakun haysi wixii labadaa ka dambeeya la haysto naagta oo bimacruufin si fiican lagu haysto aw amase tasriixun iska sii dayn oo biixsaanin si fiican loo sii daayo un wey waa labadaa u adalaaqu marataan maxaa laga wadaa dalaaqa rajciyada leh waa laba jeerun naagtaadii baad furtay hal dalqadaan kugu furaatay maxaa kuu dhiman laba dalqadood waad u baahatay waxaad leedahay waan ku soo ceshaday mar labaad baad haddana furtay maxaa markaana kuu dhiman hal dalqadaa kuu dhiman haddana waxaad dhihi kartaa haddaad u baahato waan ku soo ceshaday maxaa markaa taagan hal xabown baa taagan waa fadhi ku dirir marka inaad faraha iskaga qaaddood maanta isuga sii dayso iyo inaad halkaa ilaaliso waa labadaa un islaam waxoogaa yar kulule beri nin uu qabay ayaa way garaaci jirtay markaa garaacduu hal dalqad kusii daayey mar labaad bay haddana garaaday hal dalqadu kusii daayey waa islaan ilmo badan dhashay inuu furo ma rabo hal xabbaa u taagan maalinkii dambe ku garaacday wuu ordaya na hal baa inoo hadheeyay daa wuxuu ka baqayaa halkii de hadduu turo bes wey waa wax u dhiman oo kale ma jira na hal baa inoo hadheeyay daa buu leeyahay marka waa nooca wey dalaaqa rajciyadana waa labadaa un wixii ka dambeeya ama si fiican isuga hayso ama faraha iskaga qaad waa nooca wey adalaaqu marataani laba jeer weeye adalaaqu dalaaqa rajciyadanihi marataani laba jeer wey fa imsaakun haysi weeye wixii intaa ka dambeeya bimacruufin si fiican loo haysto aw amase tasriixun iska sii dayn wey biixsaanin si fiican la isuga sii daayo walaa yaxilu xalaal ma aha lakum idinka haddaad ragga tihiin an ta'khuduu inaad qaadataan shay-an inaad qaadataan xaala kownihi shaygaasi mimaa kii xaggiisa uu ka ahaaday aataytumuuhunna gabdhaha aad siiseen oo meher aad u siiseen ilaa an yakhaafaa ninka iyo naagtu inay ka baqaan mooyaane allaa yuqiimaa inay ku toosnaan waayaan xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa sohodimihiisa inay ku toosnaan waayaan ka baqaan mooyaane fa in khiftum haddaad ka baqdaan dadka naagta iyo ninka ku dhex jira islaaxa ugu dhex jirow haddaad ka baqdaan allaa yuqiimaa ninka iyo naagtu inayna ku toosnaan haynin xuduud allaahi ilaahay sohodimihiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa ninka iyo naagta dushooda ma ahaanin fii maa kii fiigiisana ay ku dembaabaan iftadad naagtu ay isku furatay bihi maaga tilka taasi xuduudullaahi ilaahay sohodimihiisii weeyaan falaa tactaduuha sohodimaha ilaahay ha gudbina waman yatacadda qofkii ka tallaaba xuduud allaahi ilaahay sohodintiisa fa ulaa'ika kuwaas hum iyagu addaalimuuna alla wuxuu leeyahay markaad naa guursato masaladaa u fiirso markaad naa guursato maxaad siinaysaa meher soo ma aha aslan meherkaasi mar haddaad naagta siiso waa lagu kala baxay iyadaa yeelatay xalaal ma aha inaad dhahdo meher baan kaa rabaa u daba gasho xalaal ma aha hal mara ayaad meher qaadan kartaa halka mar waxaa weeye ninkiiyo naagtii way isku dhaceen dhibkii wuu batay way wada noolaan kari waayeen naagtiibaa marka waxay damacday naagtiibaa cararays markaasaa waxay tidhi war maxaad meher ii siisay $1,000 baan meher kuu siiyey war kunkii waa kan iga qabso isii daawayt maxaa la yidhahdaa waa khulc soo maah way iskhulcaysaa alla marka wuxuu leeyahay ragga xalaal uma aha naagaha xoolaha ay siiyeen oo meherka ay u siiyeen inay ka qaataan xalaal uma aha oo uma banaana
ilaa inay ninka iyo naagtu ka baqaan inay isku dambaabaan oo markaa naagtu intay ninka meherkii u celiso isaguna uu sidaa ku furo mooyaane. hadday ninka iyo naagtu is yidhaahdaan wixii hadda ka dambeeya waad isku dambaabaysaan oo naagtu ay dhahdo war meherkaagii baan ku siina iska kaydaa, wax dembiya ma jiro. marka meeshaas falaa junaaha calayhima fii maftada bihi baa la yidhi. mas'aladaasi xagga fiqiga waxoogaa khilaaf bay culimada dhexdooda ku jiro oo culimada qaar waxay leeyihiin naagtu ninku waxa uu naagta ka qaadan oo khuluc ahaan uga qaadan karaay waa waxa uu siiyey oo meherka abes. culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya, haddii iyada oo $100 lagu meheriyey ayaa wuxuu dhihi karaa $10,000 isi aan ku fure. aayaddan ay markaa culimadaas way ku dhegan yihiinoo falaa junaaha calayhima fii maftadat tiro laguma xidhin. marka waxay rabtay ka qaadan kartaa culimada le halkan yay aayaddanay beesanay fiirinaya oo daliishanayaan. jamiil. laakiin mas'alada markaad culimada aqwaashooda iyo fiqiga markaad si fiican u fiiriso meherka waxa naagta meherka loo siiyo buu ka qaadanaya, taasuu ka qaadanaya. balada u fiirso fii maftadana dee meherka in laga qaato kama hor iman hayso. jamiil. walaa yaxilu xalaal ma aha lakum idinka xalaal idiin ma aha an ta'khuduu inaad qaadataan shay-an inaad qaadataan xaala kownihi shaygaasi mimaa kii xaggiisa uu ka ahaaday aataytumuuhunna naagaha aad siiseen ilaa an yakhaafaa ninka iyo naagtu inay ka baqaan mooyaane anlaa yuqiimaa xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa inayna ku toosnaan haynin. fa in khiftum haddaad ka cabsataan, khitaabkaasi wuxuu ku dhacayaa ninka iyo naagta dadka ku dhex jira ee islaax ugu dhex jira ayuu ku dhacayaa. fa in khiftum haddaad ka cabsataan ninka iyo naagta dadka ku dhex jirow allaa yuqiimaa ninka iyo naagtu inayna ku toosnaan haynin xuduud allaahi ilaahay sohodimihiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa labadaa dushooda ma ahaanin fii maa shay fiigiisana ay ku dambaabaan iftadad naagtu ay isku furatay bihi maaga. tilka taasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan ee falaa tactaduuha gudbina. waman yatacadda qofkii gudba xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwaas hum iyagu addaalimuuna wey. fa in dallaqahaa ninku naagta hadduu furo hadduu dalqadii saddexaad ku furo. fa in dallaqahaa ninku hadduu naagta dalqada saddexaad ku furo falaa taxilu lahu ninkaa naagtaasi xalaal uma aha min bacdu intaa kadib xataa tankixa zawjan gayrah ilaa ay ka guursato nin kale. fa in dallaqahaa ninkaa kale hadduu furo falaa junaaxa dembi calayhimaa ninka iyo naagta dushooda ma ahaanin an yataraajaca inay isku noqdaan in dannaa haddii ay u maleeyaan an yuqiimaa inay ku toosnaan hayaan xuduud allahi ilaahay soodimihiisa. wa tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduuddiisii weeyaan yubayinuhaa xuduudda alla wuu caddaynhayaa liqowmin qoom buu u caddaynhayaa qoomkaasoo yaclamuuna cilmi leh oo wax kala garanhaya. ayaddana waxaa weeye waxay ka hadlaysaa dalqada saddexaad ninku markuu furo naagta uu ku furo. naagta ninkaas ma ceshan karaa? tii koowaad buu ku furay, tii labaad buu ku furay, tii saddexaad buu ku furay. khalaas waxuu ninkaasi naagtaa ay ugu soo laaban kartaa inay nin kala guursato oo weliba ninkaasi uu isticmaalo sida ay sunnadu inoo caddaynayso. nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii u timid intuu ninkeedii hore uu furay nin kale soo martay damacday inay ninkeedii hore ku noqoto muxuu yidhi kuma noqon kartid xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki buu nabigu alayh salaatu wasalaam. waxaa la rabaa ninku naagta intuu guursado weliba inuu isticmaalo saasuu ugu noqon karaa, si kale uguma noqon karo. ayaddu marka intaasi ka hadlaysaa. fa in dallaqa hadduu furo ninku haa naagta dalqada saddexaad falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu intaa kadib xataa tankixa ilaa ay ka guursato zawjan nin oo gayrahu isaga kayrkiis ah. fa in dallaqahaa zawjkaa kale hadduu furo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa ninka iyo naagta dushooda ma ahanin an yataraajacaa inay isku noqdaan in dannaa hadday maleeyaan an yuqiimaa inay ku toosnaanayaan xuduud allahi ilahay xuduuddiisa. wa tilka taasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan yubayinuhaa xuduudda alla wuu caddaynhayaa liqowmin qoom buu u caddaynhayaa qoomkaasoo yaclamuuna wax kala garanaya. wa idaa dallaqtumu nisaaa naagaha markaad furtaan
وفبلغنا ناقو أي أدوادان أجلهن أجل كودا أي أدوادان فأمسكوهن ناقها هايستا بمعروف سفي عنو هايستا أو أما سيسرحوهن إسكغتغا بمعروف سفي عن أغتغا ولا تمسكوهن ناقها هايسننا درارا لأجل درار لبيد درتها هو هايسننا لتعددوا إلى الحد قدبتان ومن يفعل ذلك أرنك هاقا قفكي سمية فقد ظلم وحو قفكاسي دلميي نفسه نفتيس أيو دلميي بالمسألة هو فيرس ألا وحو ليهي مركاد ناقها فرطان ناو عدائي كجران مركي عدادو لو داي فبلغنا ذن أفيرسو هي فبلغنا ذن الله بكرا معنا يلاني فبلغنا ذن وحوية بمعنى قاربنا لغولا ناقتا آد فرطي مركاد أركتو إني عدادو لو داي هدي رجك أجرتو سوء عشو سوء عشا مركز سفي عنا وهايسو أما سفي عن سوء داي وحلها سوء عشانين لكن محال أقولين وحال أقولين إن ناقتاس لسوء عليو إن لا دبدرت لسوء عليو رجع قار نوع عاصم ياجر أودي إن يجورستان ودينا مركو ناقتا فرو مركي عددو أي دولة هاي أيا وحولي وانكو سوء عشري وجدك لما لها إنه دبور ربع وأنا أتلقى حلي جاهري أو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة أيضا وحولي سبب نزول كذا وحويه حلي جاهلي يعرضها يجري جرتي نيكو مركو ناقتا فرو مر الله مركي عددو دولة هاي أم سوء علين كل جير بسوعرين إلا إياه وصدح دلقاء وحي مينا أكتو كشاقين هينيني ناقتا مركا وحان لغا يابا الله تنسى إنو سوعريو oo sida naagtu ku dhimato marka dambe dhaqankaasu ilaahay baabiye subhanahu wa ta'ala waxa weeye ciidadu markay naagta u dhowdahay haday raja kaaga jirto naagta oo aad rabto naagta inaad cisho hadii kala soo maaha faraha ka qaad dhibid darteed ha u soo celin waa nooc masalad wa in dalaqtumun nisaa naagaha hadii aad furtaan oo fabalagna naagu ay u dhawaadaan ajalahunna waqtigooda ay u dhawaadaan ay ciidadu ka guuy فأمسكوهن ناقها هايستا أو عشدا بمعروف سفي عنو هايستا أو أما سسرحوهن ناقها إسكاغتغا بمعروف سفي عنو غتغا ولا تمسكوهن ناقها هايسننا درارا لأجل درار لبيت درتد هاو هايسننا لتعتدوا مركزنا الحد قدبتان إن القف مسلمة أعطبت واحد قدب ومن يفعل قف كيسمي ذلك كاغا فقد ظلم نفسه نفتيس دلميي عذاب نفتيس أو سبب نقضي ظلم القواكاس ولا تتخذوها كيراننا آيات الله إلهي آيات كيسا هزوا عيار هكذا بل قضاها يان لقو عيار تلك هذا في عامل أين بلان وحضر كيسانين مانكي ناكتيسا طبان جير فريا حيلا هاي فريا وحسنين بمر وبدي ودارا وحي هذا نبو سمين هيا نبي هذا ولا هذا يمر واحد اسكدا حيل هاي فرن هذا اسكبا دايبه هذا وحي marka waxa weeye dalqadaha u fiirso dadka hadda inta badan su'aalaha ku weyn marka dadka qaar kood markay arrimahan ay ku weydiiyaan ama waxaad ka baqeen inaad canaanato war hadii haweenaydan aad ka samrin hadaada ka samrin oo marka daraasaysay ee dhan walba ka fiirisay aad ku qancin inaad hayn karin dalqadahan yana gacantaada ka bixin hay laakiin markii inta dan walba naagta ka daraasayso ay ku soo baxdo marna inaad hayn karin si caadi ay isuga siidaa istaba wareegan iyo dadka raga qaar waxa jira 10 jeer naagaha soo celin hadda saacadana joogo hadda furi uu soo celin marka dambe adoo leh warway ka dhamaatay ayuu iska soo celin haduu rabo balada u fiirso marka arrimaha noocaasa waa dalqad aayaadka ilaahay la sheegay waa dalqadaha way aayaadka ilaahay oo dalqadaha هكو جيسنا ولا تتخذوها كيلاننا آيات الله إلهي آيات كيسا هزوا جيس هكيلاننا واذكروا حصوصا نعمة الله إلهي نعمة ديسا حصوصا عليكم دشنا وإذن نعميي إيا وما شيء أنزل الله وسود جيي عليكم دشنا وكسود جيي ومن الكتاب كتابك والحكمة حكمة وسنة يعيذكم إلهي وإذن وانين هيا به أي بما أنزلوا إذن كوان وكتابك يسنة واتقوا الله إلهي كبقى واعلموا عقاد أن الله إلهي بكل شيء كستعليم وكل الملايحي وإذا طلقتم النساء نقاه مركا فرطان وفبلغنا أي قادان أجلهن أجل كودا أي قادان وعددوا أي كدماتو فلا تعدلوهن ناقها أديدنا أن ينكعن إني قورسدان أزواجهن نمان كودا إني قورسدان
إذا تراضوا هدي إسر على النقدان بينهم لحظة بالمعروف سفي عنا أي سور هذا النقدان ذلك كاغاس يا يوعد لوان به سرع من قف كان هذا منكم حقين حاله كهذا يؤمن كير من بالله إلهي يا واليوم مال الآخر آدم ذلكم كيناس يا أزكى في عنان بدن لكم إليك يدي في عنان بدن أو أظهر ظاهرنا بدن والله إلهي ما يعلم وحو البؤج وأنتم إذنكم لا تعلمون وحما أجدين آيات سبب النزول بيلحي سبب النزول كذا وحوها سحابي اللي هو مقعاب بجري معقل ابن يسار يا جبل ولا شيء على فري نكادي بفري انت عدده كجر تيمون سوء عشانين عددي بقبضي كبحري markay ciidadii ka baxday ayay isu baahdeen inay isguursadaan bay dooneen macqil baa wuxuu yiri uma soo dhawaan kartid uu hadda dan ka leedahay intay ciidada ku jirto maxaad u ceshan weyday waa aslan ba gabadha agteeda soo istaagin uu arintii iyada buu Ilaahay Quraanka ka soo dajiyay subhanahu wa ta'ala waxa weeye ayada marka macnaheedu waxa weeye hadii gabadha la furo oo ciidadu ay dhamaato laakiin maxaa lagu furay hal dalqada waa dalqa rajciga hal dalqada lagu furay ama laba dalqadood baa lagu furay hal dalqada taagnaa ama laba taagnaa ciidadii iyadoo ka baxday baad isu baahateen waad nikaaxsan nikaax caadiya wixii harsanaan kugu soo noqon haday laba dalqadood harsanaayeen labadii bay kugu soo noqon haduu mid harsanaana taan bay kugu soo noqonaysaa waa masaa'isha ugu badan ee dadka ay lagu weydiinayo ninkii naagta markuu furo ee ciidadu ay ka go'day hadii saddexdu ay dhamaadaan waa inay nin soo marto xagga iska dhig haday laakiin laba ay harsanaayeen ama mid ay harsanayd ciidadii oo dhamaatay wuu mehersan karaa meher caadiya ayuu mehersan karaa markay soo noqon maxay ugu soo noqonaysaa wixii u dhinaabay ugu soo noqon markaana inta ayad aan ku celino wa idha dalaqtumun nisaa naagaha markaad furtaan oo fa balagna naaguhu ay gaadhaan ajalahunna ajalkooda ay gaadhaan oo ciidadoodu ay dhamaato fala ta'duluhunna gabdhaha ha u diidina an yankixna inay guursadaan azwaajahunna nimankoodii furay inay guursadaan ha u diidina idaa taraadow hadday isu raali noqdaan baynahum dhexdooda hadday isu raali noqdaan bilmacruufi si fiicanna ay isugu raali noqdaan daalika kaaga yaa yuucadu lagu waanin bihi isaga man qofka kaana ahaaday minkum xaggiinna xaaluu ka ahaaday yu'minu mid rumayn billaahi ilaahay iyo walyowmi maalin alaakhiri ee dambe daalikum kiinaas oo ah axkaamta ilaahay inaad u hoggaansantaan yaa azkaa fiicnaan badan lakum idinka oo wa adharu daahirnaan badan wallahu ilaahay baa yaclamu wax walba og wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin